Kanye West ayaa si rasmi ah u bilaabay ololihiisii doorashada 2020 ee madaxtinimada dalka Mareykanka waxa uuna isu soo bax kala daasan oo ku qabsaday magaalada Charleston ee South Carolina. West oo 49 sano jir ah waa musharax madax bannaan oo qaabkiisa u gaarka ah isagoo ugu tartamaya doorashada dalka Mareykanka la filayo inay ka dhacdo. Hadal uu ka jeediyay isu soo baxa waxa uu fanaankan u muuqday in uu go'aano siyaasadeed oo waaweyn uu ka hadlay isagoo xitaa aan isu soo diyaarinin. Arrimaha uu ka hadlay waxa ka mid ahaa ilmo iska soo xaaqida iyo haweenaydii la magac baxday Harriet Tubman. taageerayaashiisa ayaa la yaabay fanaankan waxayna isweydiinayaan sababta uu xilligan kala guurka u bilaabay ololihiisii doorashada. dadka qaar waxay u arkaan inuu isku soo caan bixinayo oo kaliya ee aanu isagu doonaynin inuu ku guuleysto ama uu ku guuleysan karaba xilka madaxtinimo ee dalkaasi Mareykanka. isu soo bixi ka dhacay Charleston waxba kama bedelin shakiga laga qabo in ay daacad ka tahay ololaha doorasho madaxweynaha Mareykanka ee ugu jiro. sidoo kale fariin uu Kanye West sabtidii soo dhigay bogga Twitter-ka uu ku leeyahay oo laga tiray hadda waxay sii xoojisay wararka la isla dhexmarayay ee shakiga abuurayay. kulan uu ku qabtay hoolka shirarka iyo aroosyada lagu sameeyo ee magaalada waxa la sheegay inuu u furnaa martida gaarka ah ee isdiiwaan gelisay oo kali ah balse boggiisii ololaha doorashada maba ahayn mid shaqaynayay oo dadka ay isugu diiwaan gelin kareen. West ayaa timihiisii ku soo dhex qortay 2020 waxaana uu soo xirtay jaakada aan xabadu karin waxaana uu dadkii isu soo baxay la hadlay isagoo aan mikrofon haysan oo cod dheer markaa ku qaylinayay. sidoo kale dadkii dhageysanayayna ma aanay haysan mikrofon taasi oo sababtay in Kanye West uu dadka weydiistay inay aamusaan si uu u maqlo su'aalaha la weydiinayay. waxa uu bilaabay in uu ooyo markii uu ka hadlayay shuruucda la xiriirta ilmo iska soo xaaqida isagoona sheegay in waalidkiis ay ku dhawaadeen in isaga xitaa ay soo tuuraan. Kanye West ma jiri lahayn sababtoo ah aabahay aad ay u mashquulsanaa ayuu yiri. waxa uu intaa raaciyay waxaan ku dhawaaday in aan dilo gabadhayda xitaa haddii xaaskayga Kim Kardashian West ay iga tagayso. hadalkan kadib waxay dunida ku soo biirisay oo ay dhashay gabadhayda North iyadoo aniga aanan doonaynin arintaasi ayuu yiri. balse waxa uu ku adkaysay inuu aaminsan yahay in ilmo iska soo xaaqida laga dhigo sharci dadka u fudaynaya waxay doonayaan ayna taageero dhaqaale helaan hooyooyinka cusub ee dhibaataysan. waxana uu yiri qof kasta oo canug haysta waa inuu helaa $1 milyan waxa kaliya ee aan xor u noqon karno waa inaan u hogaansano sharciga aan ku haysano dhulkeena barwaaqada ah. ilmo iska soo xaaqida waa in sharciga uu fasaxaa sababtoo ah ma ogtahay kani ma ahan sharciga alle marka muxuu noqonayaa sharci ahaantiisa ayuu isweydiiyay. West waxa uu sidoo kale isagoo aan waxba kala socon bilaabay inuu ka hadlo haweenaydii qarnigii 19aad u ololeyn jirtay in ilmaha uurka ku jira la iska soo tuuri karo Harriet Tubman weligeed maanay xuraynin qof la adoonsanayay kaliya waxay dadka ku qasbi jirtay inay u shaqeeyaan dadkii cadaanka ahaa ee adoonsanayay ayuu yiri. waxay ahayd fariin sababtay in taageerayaashiisu ay aad u qayliyaan. wuxuu sidoo kale ooyay mar uu ka hadlayay hooyadii oo geeriyootay 2007 xilli khaliin jir qurxin ah lagu sameynayay. West oo musharaxnimadiisa ku dhawaaqay 4 July waxa uu lumiyay fursadii uu uga faa'iideysan lahaa musharaxnimada waana laga soo gudbay xilligii isdiiwaan gelinta. sidaa darteed uma qalmin ayaa la yiri in uu musharax noqdo sababtoo ah wuxuu u baahan yahay in uu helo saxiixayaal aad u badan si uu magaciisa warqadda codaynta uga soo muuqdo. toddobaadkii la soo dhaafay wuxuu magaciisa ka soo muuqday warqadda codaynta madaxweynaha ee Oklahoma kadib markii uu soo buuxiyay shuruudaha ka hor xilligii kama dambaysta ahayd. sidoo kale si magaciisa loogu soo diro warqadda South Carolina waa inuu helo ilaa 10,000 oo saxiixayaal ah uuna u gudbiyo si dhaqsi leh ka hor saacadda 8 fiidnimo ee GMT xilliga Geeska Afrika.